waxaanu halkan shir salaad ku qabanay anigii chief Caaqilka Guud ee beesha Jaamac siyaad Axmed Cabdi gaas awke in beeshu ay mid tahay marka koowaad Jaamac siyaad maadaama Caaqilkii ugu weynaaye garaadkii aan ku fadhino uqaashi kalena ay joogto midda kale waxaan halkan ka hadlaynaa warar bulshada la isla dhaxmarayay oo propaganda ah oo hadallo inta la googooyay la yiri Caaqilka sameeyay iyo garaadkii Caaqilku way sayaan waan aragtaan maanta annagu isma hayno laba inoo ilmaadeen baan nahay Caaqilkii ugu weynaa heerkii wayana garaadkii baan nahay shirkadagu maanta intaas ku saabsan yahay dadka waxaan u sheegaynaa wararka been abuurka ah ee bulshada la iskaga horkeenayo ee aan jirin ama mas'uuliyiin inta warar laga duubo aan been ah oo la isu geegeynayo war ilaahay inta ka baqdaan rabadaan baa lagu jiraa joojiya wararka been abuurka ah iyo dadka aad iska horkeenaysan annagu isma hayno hadeer ogaada ishii rugtay ku bikaacso Caaqilku waa kan wixii danta guud ee dhulbahanta ay dani ugu jirto ninna laga bari maayo xaaladahan jiraan waa ka tashanaya garaadaduna way isu imaanayaan taladuna meel bay ku ururaysaa wax laga tashaday bay noqonaysaa ishaynaan annagu ishayno oo maanta iska horjeednaa ma jirto waxaa si dhacday in la yiri oo xagga kor lagaga timi mid dibad jira iyo mid gudaha ku jira iyo mid hadda dhulka joogaba garaadkii cawaysayaan maxay ahayd Axmed Cabdi isma hayno waxaan anigu leeyahay kaygii codkaygii kii odaynimo kii wadaninimo kii daneed baan ku hadlay haddana waan ku hadlayaa kamana leexanayo garaadkuna kaasuu igula socdaa waxa weeye wixii aayaha iyaga ah wixii dalka iyaga ah wixii dantayada ah oo u midaysannahay Mukhtaar Cabdi Jaamac wararka Somali News TV magaalada Laascaanood